وإلهي مهديس إن انقلبت الجواب أنكو كل سنة أنا جو أنت عندن وأنا اللي يرني جيدو بوحة محليري أقرأ جودا وأنا مسنا قلبت إني قرأنا جودا قلبتي منتانين تا وقلبتي من ماذا وقلبتي دت اسمه رتأ أو إسلاي إسهلان وعن رجينا يا إن وعن رجينا يا ما أنت كلن كانوا إنه أساس النقطة عرب تركي الشباب iyo midayntii iyo midnimadii dadka deegaanka degan oo gudoomiye Cali Jeeyte sheegay dadkan waa isku mid waana isku saami marka la fiiriyo siyaasadda Soomaaliya iyo saami qaybsiga Soomaaliya 61 xildhibaan ay wada leeyihiin haddaysan wax isugu darsanayn ay wax wada lahayn miyaa wax la isugu dari lahaa inay walaalayihiin oo ay waajib tahay in ay shaqo hortaala oo culays hor yaala ay wada qabtaan oo cadow hor yaala oo ayaga u midaysan inay u midoobaan wax la qarinayo ma dalka Soomaaliya states loo kala baxay Somaliland mar hore go'day ayadana maamul dhisatay ayadaa horumarteeda ka shaqaysata ayadaa amaankeeda ka shaqaysata deegaankeeda ayadaa xoreysatay ma nin inteena ka tirsana meeshaas tago maamula annaga ma u hagaajinni ma amiso ma u hagaajis ma adduunyo u gurmata u hagaajis soo ayagu wax ma qabsan marka ayaguna waxbay gartaan oo dantooda waa gartaan annaguna doqoma aan dantoona garan miyaana inta Puntland ay kala dirisay maal dhaweed dekada Afrika ugu weyn laga dhisaayay dawladuna uma dhisin shisheeyna uma dhishin cid kale ma galay ayaga dhistay horumar ka socda intaan qarax iyo qaxa ka socday madaawa wax la isku fiirsadaa annaga ayagu ma isku garashaana soo bini'aadan meel mooda dago dal wada la manihin way annagu aan u hooseyna ayagu u koreeyaan oo ayagu gabadhooduna baabuur u wadataa gabdhaheennuna ay aad u malaysaa digsi dabadiis marka la fiiriyo soo doqonnimo ma والله وبالله تالله قف عن هوية هنا Soomaali lagu gumaysaa inuu sijir adduunka marka dagaal ka dhaco dadka guulaysta shuruucda dejiya dadka lagu guulaystana shuruucda la dejiya 91 hawiyada dalka kuma guulaysano sharcigi waxa dejiyay nimankii laga guulaystay nimankii guulaystana waa lagu dul dejiyay soo doqonnimo ma shabaabkan meeshan joogan Somaliland ka yimid oo godanaliya keenay idinka ma keenay nimanku ku soo dagana naageen waa ka furtay guriyiina waa ka qaatay lacagteena waa ka qaatay waana laay asagoo islaanimo ugu soo gudana soo doqonnimo ma wax kasta oo doqonnimo horta hawiye hoos yaalin hadda meeshaan la joogaa marka tiraasacad dagaal gal aniga dhul uga maqno ku leeh war hadduu dhulka maqnay walaalka uu ka maqan yahay nimankan shabaabka hadday inta joogaan talaalkooda joogan waa kugu soo fidaa kaama joogsanay dudub la arkaysa waxa leedahay warkaale dagaalka soo gal wuxuu ku leeyahay ii sheeg aniga wali deegaankayga lama soo gaar war si lagu gaar kaale kan inuu gaar rabo ku gaarsiin kaalmay lagu ma karo abgaal meeshaan uu soo dildilo ma hor u soco gadaal u soco lagu ma karo dawladii Soomaaliyeed sidii gaaladii Amisom ama Mareykanka tuuge war meeshaan cadu joog kaale ila soo gal ma sugbala ciidankan weelo lama yeeli karo waxaasoo dhan hooyi aabba doqonnimo hawiye ah ama madaxweyne ahaado ama mid state ha ahaado ama gobernatoor ha ahaado ama taliye ciidan ahaado dalkii annaga madaxweyne ka taliye ciidanka annaga ka balaayadu annaga in haysataa hal xabana ma qaban karno soo doqonnimo ma war dagaalku hadda aad u socotiin waa dagaal xaq ah horta qof uu shaka uga jiro ma jira saddex arrimood oo dagaal leh xan waa leh xabaal waa leh xaraarsiman waa leh labada dabbe waa gar qofku inuu la xabaalo waa gar in la xaraarsimo waa gar laakiin in la xanto lagu xanto waa fulay waa cararay waa ceeb Sooma ninkii meeshaan inuu ka cararo horta guriga habartiisa joogo habadahan aad haysataan ninna waa ka kitibtaa ninna meesha ugu tala galo dhinac ka mara ninna fulanimo darteed qoriga la qaadi waaya Sooma horta ninkii ilaahay fulay idin kama dhigo oo ilaahay xabadu idin kama kitibsiyo oo ilaahay idama baalmarsiyo oo midda ridaan bal hela laakiin urkoola la rabaa urkoola ugaarata doqonnimadu nin doqonu dab idin mashida waa idin ka dambeeyaa doqonnimada istaalo isqobqobka reehebel iyo reehebel maanta meel iska dhiga
meel iska dhiga maanta annaga waxaan rabnaa meeshaan aas dad awal kala maqnaad maanta midaynaysiin inta kale in idinku soo biirto aan rajaynaa dadka aan wax ka sheegayo inaan nacbahay maahan dhalinaan u raadinayo maahan waa caraado waxaan rabnaa cadowgan waa iska dul qaadi karnaa inaan u midoowno waqtina aan lumin gacmo wada jiray wax ku gooyaane wixii nin dhiba maxaa la yiri tol ma dhibaan war nimankaan haddii xawaadla goonu dhibo ceyr goonu dhibo sacad goonu dhibo salabaan goonu dhibo abgaal goonu dhibo haddaan isku tagno maana dhibi karaa dawladdii Soomaaliyeed oo Afrika oo dhan uga awood badnaada inta isku taagnaan ridna Soomaa daanyarta ma anaga iskaana dhici karta waxay noogu dhex jirtaa wallahi waa doqonnimo taayna guulaan idin rajaynayaa waxaan rajaynayaa maanta wixii ka dambeeyay nimanka shalay ayaga noo midaysnaa jiray annaga qoqobnaa jiray waa qabiileysnaynay waa qaybsanaynay soo maanta waxaas god ku ridi mayno balan ilaahay mata kuwaan wallahi billahi taala hadaad hal mar u dhaqaaqdiin inay waftiina kaliya boobinaysay bin aadamkana ilaahay ummadii wada jirto wax oo guul siiya annaga xawaala lagu soo celiyo libaaxa geed ku jira nina dab intu ku agshido qiiqiiso ku soo baxshaan nina waa la diraa habar gidir iyo xawaala dabka intu shiday oo libaaxi soo baxshay habar gidir mursal raba in la diraan annaguna hadda shib malihin annaguna hadda shib malihin meeshaas waxa rabnaa hadday inta xabadu ka soo dhacdan in loo wada rido inta hadday ka soo dhacdan in loo wada rido hadday inta ka soo dhacdan in loo wada rido maanta wixii ka dambeeya waqti lumis ma jiro cadowgana haddaan u adkaysano oo geesinimo iska baarno raga ilaahay naga dhigo laba lafood asagu ma lahan annaguna hal laf ma lihine hal nafaan wada leenahay annagaana xaq ku taagane ilaahayda garansiyo khayraan isku ognahay reer goobood waxaan leeyahay nasiibaad leedihiin makka laga soo qaxay soo madiina looma soo qax aaskii islaamka soo ma noqon guulo hadday meeshaan ka timaado idinka guushaas aasaas u ah geedkii lagu midoobay ilaahay meeshaan Allah ka dhigo hal qof oo dadka deegaankan yimaaday saas ilxun ugu fiirin karta wallahi inaysan jirin la ogolaanayni haddii haddaba la ogolaanayo ama waxaas la sameeyanayo haddaba ku dhaanimaha dhagaray ka rontee dadkan walaalayaan la sirina meeshii ka yimaadaan ha u noqdaan sugu maysooma nima cadowgiina waa nimankaas shayaadiiminta oo kulligeen dhiigiina xalaalaystay horta kaas meel iska saara kadib ma ahano doqonnimadii shalay jirtana maanta laga gudbo dadka yimidna waxaan leeyahay idinkoo qable oo isku kalsoon oo aaminsan dalkiinii deegaankii inaad joogsataan meeshaan daga kana dagaala wax dareen ha ku joogina waana maasantiin